asalaamu calaykum. kusoo dhawaada barnaamijkan aan uga magac darnay bandhiga axsaab kaa oon kaga hadli doono kuna soo bandhigi doono warbixinadii ugu dambeeyey ee arrimaha tiknolojiyada. nala wadaag aragtidaada ku aadan barnaamijkan kadib daawashada muuqaalka. dhowaan shirkadda YouTube warbixin ay soo saartay ku tilmaamtay in macaamiisha YouTube ay kor u dhaafeen 1.9 bilyan bishiiba, halka saacadda ay ku tilmaameen inay isticmaalaan 80 milyan, sida uu sheegay warbixin oo soo saaray Susan oo ka mid ah madaxda shirkadda Google ee iska leh YouTube. macaamiisha ugu badan ee YouTube isticmaasha waxa ay kasoo jeedaan waddanka India, sida uu cadeynayo tirakoobkan. isticmaalayaasha YouTube ee kasoo jeeda India ayaa tiradooda kor u dhaafeen 225 milyan, taasoo ka dhigaysa waddanka ugu badan ee isticmaala YouTube-ka. ogowna India waa waddanka labaad ee adduunka ugu dadka badan. Twitter ayaa lumiyay 1 milyan oo ka mid ah macaamiishiisa, kuwaas oo ahay fake ama kuwa aan la isticmaalin ama si sax loo lahayn. macaamiisha shirkadda YouTube ayaa ahayd ka hor isku shaandhayntan 336 milyan, laakiin ka saaridda 1 milyan oo shakhsi ayaa ka dhigtay macaamiisha Twitter inay noqdaan 335 milyan. sidoo kale shirkadda Twitter ayaa shaacisay inay ku faraxsan yihiin isku shaandhayntan cusub, ayna uga dhigan tahay ka hortagga akoonada looga shakiyay inay spam hayeen iyo kuwa fake ah. intaa waxay hadalka ku dareen inay ilaalin doonaan ammaanka akoonada macaamiisha shirkadda, kana taxadiri doonaan waxyeeleynta xogtooda kala duwan. ugu dambeyntii, Facebook ayaa daha ka rogay adeegiisa cusub looguna magac daray Watch Party ama daawa xafladda, laakiin barnaamijkan cusub ayaa laga heli karaa oo kaliya gruubyada. Facebook ayaan ugu talagalay in muuqaalada si wada jir ah loo daawado lana falanqeeyo. barnaamijkan ayaa ugu dambeyntii soo shaac baxay kadib 6 bilood oo ay socotay tijaabadiisa. dad badan ayaa ku tilmaamay barnaamijkan in shirkadda Facebook ay tartan weyn la geli doonto YouTube oo ay leedahay shirkadda Google. bandhiga ay isbuucan qabteen shirkadda Google ayay ku sheegeen in Google Drive oo ka mid ah adeegyada ay bixiso shirkadda Google uu noqday adeegga 8aad ee loogu isticmaalka badan yahay adeegyada ay soo saarto shirkadda Google, maadaama ay kor u dhaafeen dadka isticmaala 1 bilyan, halka ay kaga horreeyeen tirakoobkaas YouTube, Android, Search, Gmail, Maps, Chrome iyo Google Play. macaamiisha shirkadda Samsung ayaa la rajo ah inay shirkadda Samsung taleefanada dambe sida S9 iyo waliba S9 Plus ay kordhin doonto celiska bateriga, kaas oo ay xabashooyin kala duwan ka muujiyeen macaamiisha shirkadda. dadka ku xiran waxna ka iibsada Samsung ayaa isla lahaa oo rajeynayay in shirkaddu isbeddel ku sameyn doonto nolosha bateriga, gaar ahaan taleefanada S9 iyo S9 Plus, laakiin taas ayaa noqotay mid aan suurtoobin maadaama ay shirkadda Samsung tallaabo hor u qaadeen, laakiin ay isbeddel ku sameysay barnaamijyadeeda kale sida kaamirada iyo waliba nashqadda taleefanka. laakiin celiska bateriga weli waa sida S8 iyo waliba S8 Plus. aniga hadda kula hadlaya waxaan isticmaalaa S9. celiska baterigiisa waa 10 saacadood qofkii internet ku isticmaala, halka qofkii internet aan ku isticmaalo oo hayn karo 1 maalin. laakiin waa mobile waqti badan la geliyay, halka ay ammaanka xogaha macaamiisha ilaalisa shirkadda Knox. waxaan sugnaaba waa Samsung Note oo dhowaan la soo bandhigi doono. laga yaabay Facebook inuu cancel gareeyay qorshihiisii ahaa dhisidda quwad internet ah asiga oo adeegsan doona solar system. taa beddelkeeda afhayeenka shirkadda Facebook ayaa sheegay inay bilaabeen dhismaha satellite-kan, kaas oo ay ugu magac dareen Athena, sida ay usii horumariyaan adeegooda dhanka internetka ah, kaas oo hawada loo diri doono bilowga sanadka nagu soo foolka leh ee 2029. in badan ayaad juhdi bixisay, in badan ayaad shaqaysay oo aad xaafadda timid adiga oo daalan. sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad daawato muuqaallo madadaalo ah, ha ahaadaan aflaanta actionka ah ama kuwa jilliinka ah, sidoo kale kuwa jacaylka meesha kama marna, iyo dhammaan noocyada kale ee soo haray. waxaan filayaa in badan oo idinka dhegeysanaya ka mid ahi inay raadinayeen meel ay ka daawadaan muuqaallo kala duwan sida TV shows, drama, action iyo wixii lamid ah. sababta idin la wadaagay barnaamijkan ayaa ah inaan ogahay inay jiraan dad badan oo jecel daawashada aflaanta laba sabab awgeed. midda koowaad, barashada luqadda Ingiriiska, maadaama haddii aad daawato in badan oo aflaan ahi ay ka dhigan tahay inay kuu fududaan doonto barashada Ingiriiska. midda labaad oo ah dadaalo iyo waayo aragnimo qofka kusoo kordhaysa. sidaa darteed balan waxaa idinkaga sheego Netflix.
ma huba in qof Soomaaliya jooga oo iska diiwaan gelin karo maadaama aysan aqbalayn, laakiin qofkii haysta bangi card sida Mastercard iyo wixii la mid ah inuu iska diiwaan gelin karo. waxaad kala ogaataa in aad bixin doonto bishii lacag dhan $10. la yaab iyo kula noqon. waxaan kaloo ku hayaa hadalka farxinaya. $10 waxaad ku isticmaali kartaan 4 qofood. marka aad bixiso $10 waxaa lagu siinayaa 4 user oo kala duwan. marka asxaabtaada waad la sii share gareyn kartaa oo lacagta waa kula bixin karaan. waxa aadna ka helaysaa dhammaan muuqaalada aflaanta, ha ahaadaan Hindi, American iyo kuwo kale badan.